waayo bismillaah alxamdulilaah ilaah mahad iskale walaalayaal meel walba joogtaan soo dhawaada. waxaan ka bilaabaynaa cashirka haddii ilaahayd 1.8 oo ah healthy problems of the nervous system ayaan ka bilaabaynaa insha allah. waxaan marka hore insha allah rabaa inaan ka jawaabo su-aal ah macalin su-aalaha buugga biologiga ah nooga soo jawaab walaal. insha allahu jawaabtaasi insha allah waxaan kaaga jawaabayaa su-aalahaasi insha allah buugan kusoo qoraa iyagoo hal mar kulansan ayaan insha allah u keenaa inta aan buugga mar walba kugu jawaabi laha ama si aan samey lahaa waqti badanay u baahayn in la kala saaro, waqti la qoro, tartiib loo kala saaro, qofka uu kadib akhristo ay u baahan tahay. marka saasaan insha allah ugu jawaabaa dadka soo codsaday su-aalaha biology in laga soo jawaabo. waayahay bismillah. waxaa ugu horeeya dhibaatooyinka caafimaadka ee ku dhaca nidaamka dareenwadka guud. waxaa ugu horeeya kow dementia. dementia waxaa loo yaqaanaa walaal loss of memory. dementia waxaa loo yaqaan loss of memory. qofka xasuusta ay ka dhunto ayaa waxaa loo yaqaanaa dementia loo yaqaana loss of memory. qofka inay xasuusta uu waayo amaba ay ka luntaa waxaa loo yaqaanaa dementia loo yaqaanaa. waayo marka waa cudur ku dhaca maskaxda weeyaan. dementia is caused by waxaa sababa progressive waa maxay iscausid baa waxaa sabab uu leeyahay progressive irreversible degeneration of the degeneration waa maxay degeneration marka waxaa xumaasho irreversible aan soo noqod lahayn oo ah progressive ee soo hormara. waxaa sababa cudur macnaha xumaasho macnaha aan soo noqod lahayn oo soo hormara ayaa sababa. of wuxuuna ku soo hormaraa marka degeneration waxaa waaye xumaasho irreversible macnaheedu waxaa waaye soo noqod aan lahayn. progressive waxaa waaye horumar ku soo hormaro waaye wuxuuna ku dhacaa cerebral cortex maskaxda qeybta ee cerebrum-ka ee hore ayuuna ku dhacaa. and results waxaana kasoo xasilayo mental deterioration maskaxda inay daciifto. mental deterioration waxaa loo yaqaanaa maskaxda inay daciifto. usual had iyo jeer of several years waa maxay had iyo jeer maskaxdiisa sanadba over years several years dhowr san markuu sii gaaran maskaxdiisu way sii daciifaysaa. waayahay there is waxaa jir uu leeyahay gradual impairment waa maxay of memory waa maxay xasuustiisu inay daciifto si tartiib ah. impairment inay daciifto waayo memory xusuusta. impairment inay daciifto gradual si tartiib inay daciifto especially gaar ahaan short term si gaaban ama si dhow inay ku daciifto. waayo intellect waa maxay wuxuu leeyahay marka haddii aan sii wadno usual had iyo jeer marka of several years dhowr san ay sii xumaanaysaa marka there is waxaa jira uu leeyahay gradual impairment of memory xusuusta qofka oo daciifto si tartiib u daciifto gaar ahaan special short term waqti kooban ay ku daciifto leeyahay. waaya haddii aan sii wadno intellect waa maxay caqliga qofka oo unreasoning caqliga qofka oo daciifay intellect unreasoning qofka caqligiisa oo daciifayo bal laakiin consciousness qofka wuxuu noqonayaa mid ogaashihiisu but consciences waa maxay consciousness agu dhawaaqi consciousness waa maxay ogaanshaha qofka is not affected ma saameyso qofka inuu ogaanshihiisu wax saameyn kuma yeelato leeyahay consciousness ogaanshaha qofka is not affected ma saameyso. emotional waa maxay waxaa kaloo kamid uu leeyahay emotional lability waxaa waa dareen caajisnimo ayaa ku jira. lability waa caajisnimo and personality change shakhsiyadda qofkan may also soo kale aka way ku dhacaysaa caajis ayaa ku dhacay uu leeyahay. waxyaabahaas oo dhan ayaa marka waxaa ku imaanaya marka health problems ama dhibaatooyin ku imaanaya. waaye cudurka inooga xiga maskaxda ku dhici kara waxaa loo yaqaana alzheimer disease. alzheimer disease marka maxaa marka this condition xaaladan is the commonest form waa habka ugu caansan of dementia. dementia waa qeyb ka mid waaye alzheimer disease daa manqashid waa qeyb ka mid cudurkan dementia loo yaqaano waaye waana mid ka mid a cudurrada ugu caansan waa. this condition xaaladan is the commonest form
waa qaabka ugu caansan weeyaan of dementia ay leedahay. Encephalopathy encephalopathy waa maxay cudurkan kan ah? Encephalopathy waa maxay? wuu ka hormarsan yahay countries wadamo badan ayuu ka hormarsan yahay aad ugu baahay waa macnaheedu. wuu ka hormarsan yahay marka la wadamo badan oo aad ugu baahay oo ka jira waa macnaheedu. waaye haye the cause marka wuxuu leeyahay the cause sababeynta of this disease cudurkan is unknown. waxyaabo aan la aqoon ayaa sababaya. although inkastoo ay jiri karaan cudurka marka waxaa sababo leeyahay waxyaabo aan la aqoonin. although inkastoo ay jiri karaan genetic factor waa maxay? isiro macnaha dhaxal ay jiri karaan may be involved. isiro dhaxal ayaa ku lug lahaa kaloo leeyahay. idis iyada marka iyada common sida caanka infectis waxay saamaysaa people dadku with down syndrome qabo cudurka loo yaqaan down syndrome. down syndrome waxaa loo yaqaanaa kromosoomka 21 mid dheeraad inuu raaco waa qofka kromosoomkiisa 21 inuu raaca ayaa waxaa loo yaqaanaa down syndrome. the age da 40 years weliba markuu jira there is waxaa jiro le marka there is waxaa jiro le progressive atrophy waa maxay daciifnimo horumarsan ayaa jiro. there is waxaa jira progressive atrophy daciifnimo horumarsan of ay leedahay cerebral cortex meesha sare ee cerebramka ay leedahay leeyahay. taas a combined by ay weheliyaan deteriorating inay sii xumaato mental functioning. taasna waxay keenaysaa inay sii xumaato mental functioning shaqada maskaxda inay sii xumaato ay keenaysaa leeyahay. death dhimasho ayaana usually waa maxay markaasi akas dhacaysa between waa maxay inta udhexayso 2 ilaa 8 inta udhexayso after honesty inta uusan after honesty bilaabashada kadib. marka cudurkan wuxuu leeyahay wuxuu sababi karaaba ugu dambeyn qof uu ku keeni karaaba wuxuu ku keeni karaa qofka dhimasho ayuu ku keeni karaa leeyahay. waayo inaad saas ogaataa waa haye wuxuu leeyahay marka there is waxaa jira progressive atrophy ama daciifnimo horumarsan ayaa jira of maxayna ka dhacaysaa cerebral cortex meesha bannaan ee cerebramka accompanied by waxaana weeliya deteriorating mental functioning waa maxay shaqada maskaxda oo sii xumaata leeyahay. death dhimasho ayaa usual had iyo jeer akas dhacaysa inta udhexayso between 2 ilaa 8 years after honesty bilowga cudurka kadib ayuu leeyahay. cudurka markaa Alzheimer disease waa qayb ka mid ah cudurka dementia oo bilowga noo ah qayb ka mid weeyaan. waana cudur aan la aqoon laakiin waxaa sababa genetic factor ayaa sababi karso kale. bacterial meningitis bacteriadii ku dhacda dareemiyaasha ama xuubabka daafaca maskaxda. bacteriada gasha xuubabka daafaca maskaxda. the term meningitis usually it refers waxaa loo tixgeliyaa to inflammation waa maxay caabuq of taas oo wuxuu leeyahay marka tani waa cudur uu leeyahay of the waxaan ahaa inflammation waa caabuq of the subarachnoid space meelaha bannaan ee hoose ayayna ku dhacdaa. meelaha bannaan ee hoose and is most inta badan common waa mid caan ah transmitted waxayna soo gudbisaa through iyadoo usoo maraysa contact with waa maxay inay aada ugu soo dhawaato an infected individual shaqsigii la saameeyey. infected yaana markaasi dhow kale maxay saameynaysaa an infected iyadoo contact with aada ugu soo dhawaanayso an infected individual waa maxay shaqsi markaas ay saameynta ku yeelanaysa amaba ay ku dhacaysay. waaye bacteria meningitis waa maxay is usual had iyo jeer proceeded waa la qaabeeya by a mid upper iyo sidoo kale respiratory is iyada marka aan kusoo celin meeshaan bacteria meningitis is usual had iyo jeer preceded waa maxay waxaa ka horeeya a mid upper respiratory tract infection caabuq macnaha marin infection caabuq tract marin oo respiratory nafsasho upper sareeyo oo haddana milli jilicsan ayaa ka horeeya oo leeyahay amaba iyada raaca. had iyo jeer marka waxaa ka horeeya by a milli upper respiratory tract infection caabuq macnaha mara tract marin waa respiratory nafsashada upper sareeyo oo milli jilicsan ayaa had iyo jeer ka horeeya oo leeyahay. dhiyur inta lagu jira with a few bacterial aad iyo aad u yaryar ayaa inta soo galda blood stream qulqulka dhiigga ay soo galaan ana soo kale iyaga blood stream qulqulka dhiigga ana iyaga carry way fuliyaan
to the meningitis ay fuliyaan meningitiska ay fuliyaan macnaha markaas carrier waa la fuliyaa to meningitis say meeshaas ay ku dhacaan common microbes include waxyaabaha ugu badan oo macnaha laabka lagu arkay maxaa ka mid ah bal aan fiirin idana qodobada waxaa ka mid ah Haemophilus influenza waa bacteria magaceeda weeyaan influenza marka Haemophilus influenza irjildana caruurta biduinta u dhaxayaan da'da ilaa labaad ilaa 5 inta u dhaxayaan way ka jirtaa oo leeyahay bahashan macnaha Haemophilus influenza waa maxay waa bacteria magaceeda influenza horta in irjildana caruurta biduin dhaxayso 2 ilaa 5 years inta u dhaxayso ayaa lagu arko leeyahay Neisseria meningitis in those kuwan biduwa ku dhaxeeyo leeyahay 5 and 30 years ayuu jiri karaa leeyahay the most common type nooca ugu caansan waa nooca ugu caansan waxa loo yaqaanaa Streptococcus pneumonia weliba waxay ku dhacdaa in people dadka 30 years 30 jira ay ku dhacdaa leeyahay waxa loo yaqaanaa marka pneumonia ayaa loo yaqaanaa waayahay garanay haddii aan sii wad marka waxaa ka mid ah Streptococcus pneumonia ayaa ka mid ah in people dadka 30 years jira ayna ku dhacdaa leeyahay sida caadi markaan fiirina other pathogenic bacteria waxaa kaloo jirto leeyahay bacteria kale oo cudurka dhalisa other pathogenic bacteria cudurka dhalisa ayaa kan also cause waxay sababi kartaa meningitis ay sababi kartaa example tusaale those kuwa causing waa maxay sababaya tuberculosis ama tibishada kale ana syphilis iyo syphilis sababay oo kale meningitis waa maxay xubabka daafaca maskaxda kan also effect way saameynayaan meningitis kaasi waxay kaloo saameynayaan diura mater oo meesha hadda aan sheegayno ka soo hadlayni diura mater waxaa loo yaqaanaa hooyo qalafsane ay saameynayaan especially gaar ahaan marka spread ay ku faafto into direct si toos marka u faafto through iyagoo marayo compound isku dhis skull fracture jab macnaha skull oo laf iyagoo marayo as iyada leakage waa maxay as iyada leakage waa maxay waa mid ka soo daadanaya oo cerebrospinal fluid ayaa ka soo daadanaya leakage waa maxay mid ka soo daadinaysa leakage waxa ka soo daadinayo leakage waa markaas waxa soo daadan cerebrospinal fluid dareeraha loo yaqaan CCF ayaa soo daadanayo leeyahay and blood dhiiguna and blood dhiigan from wuxuu ka imaanayaa the side also meeshuu ka imaanayaa provide waa maxay provide wuxuuna siinayaa a route of entry for microbes a route waa maxay a route in year of enter waa maxay wax ka soo gali karaan oo for microbes waa maxay waxyaabihii lagu ark markaas laabka marka wuxuu leeyahay and blood dhiiguna from the side wuxuu ka imaanayaa dhinaca also soo kale profiles wuxuuna siiyaa route waa maxay joogteen of entry for microbes wuxuu sameynaa marka joogteen uu sameynaa oo enter of microbes macnaha meeshaas ay ka dhacaysaa uu leeyahay enter gudaha microscope ka dhacaysaa uu leeyahay markaan qaybta marka halahaas weeyaan sidaan jeclahay the sense waxaan ku daraynaa senses oo dareemayaasha ayaan ku daraynaa ilaa aan keenaynaa marka insha Allah waxaan galaynaa marka deegaano chapterka qaybtiisa labaad oo senses dareemayaal sense organs xubnaha dareemayaasha bal aan fiirina test and small lagu hormar marka specialized neuron qaas ayaa jira neural body jirkaaga kuwaasoo kor loo yaqaan sensory kuwaasoo kor loo yaqaan oo leeyahay maxaa loo yaqaanaa sensory receptors ayaa loo yaqaanaa enable way awoodayaan oo leeyahay enable you waxay ku awoodsiinayaan oo leeyahay you adiga to test inaad waxa dhamisay ku tusaayaan inaad waxaan dhimi kartid iyaga ku tusaaya ismeel inaad uri kartid hear inaad maqli kartid
ها marka ismail urinta hiya wax maqlida si arkida ana tahay taabasada dhammaan ana to detect isay u difaacaan motion waa maxay dareenka markaasay u difaacaan temperature heerkulka distani senses dareemahan kuwaan ah this senses dareemahan kuwaan ah wuxuu leeyahay this senses dareemahan kuwaan ah of receptors ee dareen qabyaasha ah of receptor locate waxay ku yaalaan high meel aad u sareysa in the nose ee sanka u dhow ku yaalin oo leeyahay taasoo respond looga jawaabayo to the chemicals waxyaabaha kiimikaad in the air hawada ka soo galay annasan waxayna dirayaan waayahay waa mahadsantihiin xoogaa anaa iyara hurda i haysaa raalli ahaada waayahay marka wuxuu leeyahay waxyaabaha ay aada u qaabilsiin waxaa ka mid ismeelka hiyarta aragtida tahay taabashada ana to detect sidoo kale inay sidoo kale dareemaan motion waa waxyaabaha ana to detect motion qofkina sidoo kale motion dareen oo to detect wax lagu difaaca daafac inuu ay sameynaa leeyahay senseska waa ana sidoo kale temperature heerkulka u leeyahay the senses waa maxay marka dareen ogaadayaasha the senses waa maxay marka receptors located waxay ku yaalaan in high meel aada u sareysa in the nose sanka respond iyo kasoo jawaabayo waxay kasoo jawaabayaan to chemical waxyaabaha kiimikeed in the air ee hawada anasan waxayna dirayaan oo leeyahay anasan waxayna dirayaan better waa maxay waxayna dirayaan markaasi kuwo qaraar ay dirayaan haye these kuwa represent waxay matalayaan these waxyaabaha receptors dareen qabtayaashan detect way dareemayaan haye the different combinations ku jamcin kala duwan ay ka dareemayaan of chemicals waxyaabo kiimikeed ah in a food cunada food cunada sidoo kale ana test and damyaan an small sidoo kale ayn uriyaan le arshaun markaasi wuxuu leeyahay in figure 1.4 sidaada ku arki doontida uu leeyahay marka dhammaan warka dhan aan soo koobo wuxuu leeyahay waxaa isku xiran testi ismaalku isku xirayn sawirkaana fiir marka dhadhaminta iyo urinta way isku xirayn dhadhaminta waxa in qofku dhadhamiyo urinteedu khibrad badan u lahaana waaya dhadhamintan iyo urista labadaba intaba waxay sameynaa marka waxyaabahaas oo dhan oo marka labadooda waxa waaye kan haddii qofkan uu wax uriyo uu dareema midka kale marka dareemidaas taas yaysan wax kale u qaadin marka labadooda marka related waa marka isku xiriina lahaa waana kan sawirka fiiri alfactory nerve alfactory bulb dhammaan waa kuwaas qaabkaas waaya sidaas aynu sameynaya marka sida caadi looga hadlaayo waaya waxaan aadaynaa marka waa boodimiya raalli ahaada macnaynta qayb ka mid aan ka boodiyaa leeyahay waan ku soo celinaa ila soco waaya xoogaa aniga caajisan raalli ahaada alkamaalu lilah ilaahay sugnaatay dhamaystirid hal mar haddaan kusoo celin marka chemicals waxyaabaha kiimikeed tusaale specialized neurona qaas ah in your body jirkaagu leeyahay oo kali loo yaqaan sensor receptors dareen qabtayaasha ogaadayaasha loo yaqaana enable waxay ku awoodsiinayaan uu leeyahay to test inaad wax dhadhamiso ismeel wax uriso hier inaad wax maqasho si aragto ana taj aadna taabato ana detect waa in difaacan motions dareenada ama qofka dareenkiisa kale difaacan ana temperature iyo heerkulkan way difaacan uu leeyahay specialized waaya specialized receptors dareen qabtayaal iyo u gaaraya locate waxa laga helaa uu leeyahay in high in the nose meesha sare ee sanka ayaa laga helaa respond wayna ka jawaabayaan uu leeyahay to chemicals waxyaabaha kiimikaad weliba in the air marka la joogo hawada waaya anasani waxayna dirayaan the information akhbaar to the olfactory bulb u dirayaan waaye waxayna u dirayaan to the olfactory bulb waaye olfactory bulb kuwa urinta u qaabilsan in the brain ee maskaxda laga heli karaa test bodies waxaa ka mid ah marka olfactory bulbs waxaa loo yaqaanaa iyo kuwa urinta u qaabilsan ayaa loo yaqaanaa olfactory bulb
in the brain maskaxda laga heli karo. Test bodies kuusaska macnaha wax dhadhaminta are areas waa goobaha of iyaga the testis marka wuxuu leeyahay test bodies waa maxay kuusaska wax dhadhaminta are areas oo goobaha of specialized qaas waa goobo iyaga qaas uu leeyahay kuwaasoo keeni kara chemical receptors waa maxay dareen qabtiyaal kiimikeed oo ku keeni kara tank carab ku keeni kara kuwaasoo detect waa maxay kuwaasoo detect dareemayu leeyahay the testis waxyaabaha ay dhadhamiyeen of sweet inay macaan waxyaabahaas sur inay qaraar yihiin salt inay cusbo yihiin sidoo kale maxay kale oo karaan bitter inay qaraar yihiin these receptors dareen qabtiyaashan detect way daafacaan the different combinations different combinations maxay isku jamciin kala duwan oo badan iyadoo jirto of chemicals waxyaabo kiimikeed in food cunada oo kale in food cunada anasan waxayna dilaan information akhbaar to another parts qaybaha kale of the brain maskaxda the receptors dareen qabtiyaasha associated with isku xirmayaan test waxa dhadhamintooda aan ismail urintooda arshawn sidaan ku arki doono marka warkaan si fiican fahan dambe wuxuu leeyahay receptors dareen qabtiyaasha ayaa associate isku xirmayo yaa dareen qabtiyaasha isku xirmaya test aan ismail isku xirmayo labadooda marka waxa raada test aan ismail labadooda way isku xirmayaan sida figurkan hadda aan ku arki doono hadda sawirkan fiir walaal qofkan tusaale u jeed hadda fiiri wax buu uriyay wax buu urisama urintaas urinaayo dhadhamintan soo kale isku xirmayaan oo leeyahay qaabkaas waaye signal fariimo ayaa from these receptors ka soo baxaya weeg waan u shaqeynaan tukada si wadajir u shaqeynaan leeyahay to create si loo abuuro combined effect ama qayb macnaha qayb midowday oo saameyn in the brain ee maskaxda si loo helaa uu leeyahay waayahay halkaas inoo joogto raali ahaada xogaa anaga yara caajisan waa maasantiin halkaas inoo joogto cashirkeena saydan ka bilaabina ishan sarrix doonaa kadibna oo sharaxaad aad muhiim aan idiga hayo walaakiin oo soo nasanaya hadii ilaahay ma maasantiin walaalayaal